fadlan haddaa ku cusub tahay channelkayga subscribe ii saar. hadda hore ila joogtana like iyo share taa iga iloowin. waa mahadsantiin asxaabta, idinkaa waxaan ku nahay waa ogtihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabtaa jecelnahay seetiin mala fiican yahay hee duhur wanaagsan. anaka duhureen oo tahay adigana wixii ay ku tahay oo wanaagsan. meel kastaa joogtiin soo dhadhawaada seetihiin ma fiican tihiin? alxamdulilah anaga waa fiicannahay. idinkana waxaan rajeynaa caafimaad cimri dheer cibaadaysan leh. marka asxaabay soo dhadhawaada hee waqtiga duhureen oo tahay duhur wanaagsan. idinkana waxay niin tahayba wanaagsan. cimrigaaga raage geel dhalaayo ku tusaa mal dhehe wallaahi been ma ahan. cimrigaaga hadduu raago haddii joogto adduunyo waxa uu ma dhici karaa macquul ma aas dhehayse arkay intay macquul yihiin ee dhaceen. marka maanta waxaa arkay gabar youtuberad kala ka arkay gabar dhehayso hooyaday dadka intii kala fur dad leyba kala furaani hooyaday aabahay anaa kala fure walaashay iyo ninkeedan anaa kala fure bismillah subxaanallah wax laga naxwaa wallaahi. imagine hooyaday iyo aabahaadii ku dhale magoo dad haddii kala furaysid dadka kale iska aadi magoo maxaa guriga ugu soo noqoto hooyadii dhashay iyada dhashayaa xataa magoo ma ahan anima i dhalinay aabaheynaa kaloo qaba iyo aan kala furaay ma ahan ti iyada dhashay ee kala furay. asxaabay wax lala yaabo waay wallaahi adduunka meesha u socdo ma ogine. dad xaasid ee waa jiraan oo la iska ilaalinayo guryaha daday duminaay laakiin cunugtii adi dhashay ma iska ilaalinaydi wallaahi waa aamin waaybo. 3 maraan ku ceeshto hooyada iyo aabahay anaa kala fur markay dhaha hooyada iyo aabaha haddii adi kala furto hortii horey u kala socdeenaan dhe koos cunugtooda see ku kala furi kartaa. marka waxaan yaati youtube maa lagu kala kacsanooya waxa qaarkooda ma aragta youtube kala kacsan shaxtaa ma galaan wallaahi. wax lay adduunkan wax lay maqlee maxaa maqasho oo weliina kuu dhiman maqlaya gabartan waxay dhahayso hooyada iyo aabahay anaa kala geey koos aniga waxaa la kala geey aniga ninkeyga liiga furay dhahday. marka intii dad kala furo layba u joogaa. marka shaydaan waaye shaydaan ka hadalsiinoo la dhihi karaa tan magoo dad kale ma waaysa haddii xataa magoo dad kale maraadsan weyso hooyadii iyo aabihii ku dhalmaa kusoo noqotay. marka ila maqlab asxaabay hadalkeeda codkaani maqalsiinaa il dhageysta waxay dhahayso yaab waay wallaahi adduunkan wax la arkeenin male. hooyaday iyo aabahay inaan aniga aan kala furay walaashay iyo ninkeedna aan kala furay labadii isqabtan inaan hadda kala furi doono ani sheegaa. maxaa marka mala dhihi karaa rufiyaanimo mala dhihi karaa xawaan u jeeday because ana reerkayga naag iga dumisi Soomaa naagtaas reerkayga dumisi labadii isqabtan inaan dumiyaaba diyaar wahay baani oo kan ximbo goorma bilaad marka inaan reeraha dumiso inaa hooyada aabahaaga kala furto ina walaasha iyo ninkeeda kala furto goorma bilaawday maxaa dhawaa wax soo koob kara ma inta aan wada rufiyaanimadaane marka maxaa kugu dhaliyaas leedahay inaad rufiyaan aad noqoto oo aad dad isku jirto qoysaska dhisan aad dumiso qoyskayga aan dumay ma qoys kalaan kana xaani horiya waxaa loo yiri Soomaali waxay u tiri mudul dhisan mudul gubti kama naxo ana reerkayga naag dumis maaho anina reer aan dumiyaaba diyaar u ahay ma saacas inaa nin kala aroosto oo reer kala dhisto marabtimiya maya inaa reer dumiyo bas oo naagta ininka iskama aan kala furo maahina go'aan kale ma liibaani. hadda marka inta qoys aa kala furtay ama inta reer aad dumisay meeqay gaarayaan wax soo koob karaa. waa maqasheen ma way asxaabtay wax ka dhahay ani waa yaabanahay meesha ku yaabaan fadhiyaay hataa magoo waxaan dhahay hadday dad isku dirayso inkastoo family la burburi waxay la mid tahay la dhahay masaajidka ilaahay adoo jijabisay family hadaa burburisid iyadoo dambi badneed haddana dadkii ku dhale lay kusoo noqo isku dir. allahumma najina ilaah ka magan galna magoo asxaabay waa u jeediin adduunka waa halaabe guryaheena ilaahay hanoo badbaadiyo. idinkana waxaan kula talin lahay quraanka ilaaha ka adag wax kasta baqaro guriga ha lagu shido yaa laga ahaani ha lagu shido baqaro ku shita wixii oo saaxiibaan nahay kugu soo dhawaanayno waa kana naag horta saaxiib ma gasho
qof kale wuxuu kuu sheegan ha qaadanin gurigaagan ha iskaga burburinin ilaahay guryaha noo adkeeyo wixii ilaahay agtiis kasoo dhamaad horta ma la reebi karo laakiin waxyaabaha qaarkood gurigaaga yaa lagaaga burburinin qur-aanka ku shita siiba baqaro guriga lagu shido waxaa la dhahay shaydaan kusoo dhawaanay subaxdii salaadii ha lagu shido baqaro guryaha insha allah anina oo ku shida nin sheego mana ku shidi badana laakiin way dheer tahay inta ka dhamaanay ha lagu shido wax ka fiican ma lahan la dhahay guri baqar lagu shidana shaydaan ka soo dhawaado markaan isku soo duceynay asxaabta niyadana aan isku furno ilaahay wixii shar watana ilaahay naga dheereeyo ilaahay wax shar wata naga dheereeyo insha allah intaas la yaabaan soo gudbinaa tanna sharay wadataa ilaahay xaqaatu siidan ma la habaari kare hadee fuse karaadinays iyo waxaasna iyada ilaahaygeeda marka ilaahay la xisaabtamay marka asxaabe intaas aan idinku talagal inta videoga ka xiga iskala kulmeen waxaan idinkaga tagaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye